بسم الله الرحمن الرحيم. qofka muslimka ah haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxa sharci ahaan culimadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclahay inaan qodob ka fudud tilmaamo ah maxaa loo marsadaa waxa ugu badan ee dadka maskaxdiisa ku soo degdegta wax laga yaabo inay tiraado waa qurux ma jirta qaacido qurux la yiraahdo bini'aadam isku waafaqsanayba مثلا kuwa cadcade European midabka ugu quruxda badan la ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown adeeda isu dhigaan way wadaan inay ismadoobayso daraadeed gabadha reer Yurubka ah dadana waxay tiraahdaa kaafiga inaan u ekaado kale kaafigu muxuu idin leeyahay idinka kaafiga lacaba kafay bay rabtaa inay u ekaato ay brown noqoto midabka brown ka loo yaqaan kuwa madmadoobi waxay rabaan inay cadaadaan oo ay sacadeeyaan labada dhanka quruxdu jirta yani qurux wax la yiraahdo qaacido la isku waafaqsan ma jirto laakiin waxa jira wax la isku waafaqsan yahay la yiraahdo jamaal al-af'al quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baa loo adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subhanahu wa ta'ala lama doorto maaha wax doorasho ku jira maaha laakiin waxa doorashada ku jira waxa weeyaan waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya haduu qofku dhaqan fiican yahay gabadh kasta oo qurux loo guursado haday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysa ma jirto waayo aragtidu wax ma tarto ee qofka dhaqanka iyo waxa ka soo fula wax sheega sida daraadeed waxaan idin kula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxdu waxay tahay jamaalka dhabtiina waa jamaal al-af'al waa qofka dhaqanka ka soo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta ah qofku intuu dulqaadiyay intuu xaliim leeyahay intuu afwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadla dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku sidoo uu eegayay ba quruxdiisa sheega laakiin wajigiisu sidoo uu eegayay wax badan ma sheegto kaas waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidaalka nabiga kaleey salaatu wasalaam markuu sheegay gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay ka mid tahay hunguri dhaqaale inay haweento lacag haysato isleeyahay dhaqaalaha ka agdhawaatay inay ka mid tahay qurux laga yaabo inuu isleeyahay gabadhu way qurux badan tahay midabka iyo quruxda badan aad aragtay waxa laga yaabaa inay ka mid tahay xasab inay reer ciliyatul qawma magaalada reeraha ka tilmaamaan ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray marka dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxa la arkaa nabigu yiri inay tahay diintu waxa loo guursado kala bixin nabigu wuxuu ku bixiyay fadfar bidaati diini taribat yadak wiri ta diinta fiican yani ta dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamay yani haweenku iyana waa la mid ragga maxay u guursataan nin waa nafsi al-asbab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus leeyahay ku raacdo لكن يجنا وحنا نبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم ممن ترضون عنه الدين وخلقه فرضوا دي ما دام من دين تسي أخلاق دي سرالكتين فسوجوه نبي لجوري لين كنا وحلقوا قيمين إنه دقق في أخلاق ذا نوضة إذا نقهرين وحنا ردلها وروحي ودقن يدين ما همده كسوا قدرك كوه قدرك اللبات إلهي wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dagaal isku gooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidaalك baa waxyaabo shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono bay fala yughayiruna khalqa Allah waxyaabo fari doono ay kamid ahay saadaradeed culimadu waxay leeyeen ma amaana laakiin aan dhan kale misalada ka sii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay samaanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaalka ma wadaysa waxa xaqiiqo ah inaad u bantaalo in kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badan oo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahay uu difaaca aanu difaacmi doonin waxa hubaala in yar dabadeed inaad ka calaacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diintu waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyay
ama chemists ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kani maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidaalika baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan la isku mariyay mamnuucba sidooda ka yihiin inay soo galaan laakiin wadankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax reebtaba mid suna iyo mid voicena iyo mid waliba way timaadaa waa laga yaabaa 2 usbuuc inaad caddaato laakiin waxa la hubaa inaad aad u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqada alla ku siiyey ilaashada oo iyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish waa khiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaana waa kii nabigu wuxuu la mid yahay maxay soob zuura ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa qish ku jira waxaanad ahayn oo dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxaan xaqiiqo ahayn oo aad muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baneeyey yaan caafimaadkeedana wax yeelaynin ama qasil ha noqdo ama xinna ha noqdo ama dhir kale ha noqdo ama wax la isku nadiifiyo ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam